dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee kala socota saxaafadda dhammaan baada saxaafadda halka joogta dhammaan cid kasta oo ka daawanaysa TV-yada daafaha dunida waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxa maanta uu yahay shirkan halkan aynu isugu nimi inaan sharaxaad ka bixiyo mowqifka xisbiga wadani ee ku aadan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo shalayto xisbigu ka soo saaray qoraal warmurtiyeedu arinta kaga hadlayo ku cadeynay waxay faahfaahinta aan doonay inaan ka bixiyo inaan qodobadii xisbigu soo saaray mowqifka xisbiga ahaa horena in badan u ogeyd horena looga hadlay inaan cadeeyo cidii ay midmadow kaga jirto ugu horeyn wadan wuxuu diyaar u yahay doorasho qabsoonta oo xilligeedii ku qabsoonta hadii la qaban karayo hadii kalena aan dhaafin 2019 ama 2019 aan dhaafin cidii doorasho doonaysa wadani waa u diyaar golaha u soo diyaar garowdo tartan buu diyaar u yahay soo diyaar garow hadal kale looma baahna wadani wuxuu diyaar u yahay inuu la fadhiisto daneeyaasha doorashada iyo axsaabta iyo cid kasta oo ku shaqo leh arrimaha doorashooyinka si caqabadaha hor yaala ee la isla og yahay ee hore looga wada hadlay looga hor qaado caqabadahaasu waa lix caqabadood oo hore loo sheegay oo ay komishinka laftoodu soo saareen inay caqabada yihiin la isla aqoonsaday wada hadaladii kala duwanaaye dhex maray xisbiyada lixda caqabadood ee aynu isla garanayno ee Soomaaliland marar badan lagu soo celceliyay uma baahna inaynu maalinba meel kaga nimaadne waxaynu u baahanahay inaynu wax isla gaadhno cid aragtideeda nagu khasbaysa xisbiyaana ma jirto xisbiyada qaranku way kala madax banaan yihiin xisbi waliba aragtidiisu xaq u leeyahay laakiin waxaynu diyaar u nahay sida uu dastuurku sheegay wixii aynu dhiganay sharciga aynu dhiganay uu sheegay shuruucda aynu dhiganay iyo dastuurkeena sheegay dalka Soomaaliland siyaasadiisa waxa saldhig u ah maxay dimuqraadiyad iyo wada hadal iyo waxa weeye isu tanaasul iyo in waxa weeyaan lagu meel mariyo hanaanka xisbiyada badan oo xisbi waliba uu taladiisa leeyahay kaasaynu xisbi waliba taladiisa soo dhigaya miiska iyadoo ninka waxa weeyaan ka xoog weyn ninka afdheeray aanu miiska isugu nimaadno isla meel dhigno waxaan leenahay xisbiga talada haya iyo madaxweynaha oo ah qofka koobaad ee xilka doorashadu saaran yahay qofka koobaad ee ah uu saaran yahay xilka inuu waxa weeye shuruucda ilaaliyo sharciga dalka ilaaliyo hogaamiyaha qaranka aanu aqoonsanayno yahay waxaanu leenahay adiga xilku ku saaran yahay adiga xisbigaaguba waxba idin tarimayso ina waxaan macna lahayn ku wareegtaan oo tiraahdaan maantana farba meedla waxaan leenahay daa doorasho doonaysaan wadan doorasho diyaar u yahay hadaa wada hadal doonaysaan iyo golo la isugu yimaado lagu gorfeeyana sidii horeba ugu yimid diyaar buu yahay wadan waxaan ku celinayaa oo kale wadani gudiga doorashooyinka ceeb la'aan wuu dadafeeyo wixii noo qaban mayso doorasho kuma kalsoonin waa mowqif xisbigan u qaatay cid ku khasbi karta waa ninkii garta inoo qaadayay aniga wato ee uu kugu aad ku khasbantayna ma jirto adeer hadaad wadato anagu kuma khasbanin cid nagu sanduleynaysa ma jirto ama aynu wax isla garanno oo isla aqoonsano oo danta iyo mustaqbalka ummadda inaga ku salayn aan isla eegno ama adeer la isku khasbi karayo waa dimuqraadiyad iyo doorasho waa wax inaga dhaxeeya waxa gaarka loo leeyahay waa executive iyo fulinta ayaad awoodiisa gaar u leedahay iyadana aan looga baahnayn dictatornimo ayaa waxaad gaar u leedahay executive ama fulintaad gaar u leedahay laakiin waxa doorashooyinku waa wax ummadda ka dhaxeeya waa wax xisbiyadu ay yihiin cid horjooga ah laakiin ummadda iska leh waa xuquuq ay leeyihiin muwaadiniintu doorashooyinku in qof walba codkiisa dhiibto si xor oo xalaal ah u dhiibto hadii la isku khasbanaa xor iyo xalaal noqon maayo xaraam buu noqonaya waxa dunida oo dhan ka hadashaa doorasho marka laga hadlayo inay xor tahay oo xalaal tahay
هذا نك سيري إنه هي إسلامي نانجران هذا إنه شلي كوضا قال لي ما أنت وان ديده وان ددفي ما دبا socdo doorashadii hore iyo waxay ahayd iyo wixii waaniga madaxweynihii ku soo baxay le isaga hogaamiyaha qaranka waana isbarbar taagay wixii qarannimada ah waan isku barbar taagay laakiin se doorashada soo socota doorashooyinka soo socda inuu komishinkana noo qabto mowqifkaas aanu ka taagana waxaan arkay rag qaarkii oo ka dhawaajinaya wadani baa caynka yiri waanu ka diidnay daadeer naga diidi kari maysid adigu sharciga wax diida sharcigu ha diido aan ama sharci isla tagno ama aynu gar isla tagno oo ay soo wada fadhiisano qof wax ma diido madaxweynaha ka diiday hebel baa ka diiday daadeer hebel ma diido marka waxaan leeyahay taana komishinku mowqifkaas aanu ka taaganahay doorasho noo qaban maayo oo diyaar uma nihin inuu komishinkaana lagu khasbo diyaar uma nihin dadka qaarkii ka dhawaajinaya doorashadii laba xisbaa gelaya annaga nuguma matalayaan laba xisbi doorasho aan xisbiyadu wada gelina suurtagal ma kaftanka ka daayo aynu si wacan u tartanno isugu nimaadno golaha iyo fagaara isugu nimaadno haday idinka dhabtahay golaha iyo fagaara aan isugu nimaadno xisbi waliba mowqifkiisa isaga u gaaray wixii kale uu leeyahay isaga waxaan inta uga gudbayaa caqabadaha waaweyn aan sheegay oo ay ka mid tahay arrimaha saami qaybsiga laga hadlay fikradaanu ka soo jeedin xilligii la wada hadlayay aaraabaan kala hayno xisbigu proposal buu keenay warama kaayagii qaata iyo soo jeedintayadii ama soo jeedin kaana waa inuu isla meel dhigno waxaan ku celinaya oo ka dhawaajinaya inaan ugu baaqo madaxweynaha iyo xisbiyada xisbiga wadani sidii uu horaba diyaarka ugu ahaa in laga wada hadlo wada hadal diyaar buu yahay dadka wada aadayn madaxweyne ku xigeenadii haday yihiin dadka kale isxilqaamin muwaadiniinta cid walba uu ku bogaadinaya waxaanu leeyahay soo dhawaada laakiin muwaaqiftu waa la kala leeyahay waynu isla gorfaynayna waanaynu isla eegaynaa had dadka fidinaya ee wadani baa diiday cidna ma diidin wadani wuxuu diyaar u yahay in doorashada la galo lagana wada hadlo laakiin se wuxuu diidayaa in raay lagu khasbo raay cid in lagu khasbo oo laga dhigo dantii ummadda raayigaagu dantii ummadda ma dantii ummaddu raayigaagu ma marka waxaan leenahay cidna lagu khasbi maayo aynu isugu nimaadno waxaan ku soo ururinayaa madaxweynaha waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ba ku celinaya dalka Soomaaliland waa dal dimuqraadi ah tartan doorasho aynu galay baad ku timi wixii doontaa ha ka soo noqdaan ama lagaga cawdo laakiin sahnaan dimuqraadiyada aynu galay baad ku timi hanaanka dimuqraadiyada waxa muuqata in aynu isla hor fadhina ilaa inta imika isla hor fadhina inuu yaani dhaawacan yahayo aynu isla mari laanahay inaynu hor u sii wadno waxaan leeyahay dalka ma hore inuu wadnaa mise dib waxaan arkayay message-kii madaxweynaha soo qortay ee doorashada ku gashay horaa loo soconaya de waxa muuqata imka mala geerkii dambe inoogu jiradii kii hore inoogu ma jiro aynu geerkii hore dalka haday yihiin xisbiyo iyo haday yihiin dawlad iyo haday yihiin shacab aynu geerka hore gashan doorashadii aynu sanawaadka soo wadnayeen maanta isku qaban dimuqraadiyadu ma doorashado kaliya maya waxa xidhan muwaadiniin aan leeyahay xoriyadooda ha loo soo celiyo hadaan dambi cad loo hayn hadii dambi cad loo hayana hal la geeyo cid xaq u leh la horgeeyo muwaadiniinta dhalinyarada ee hal abuurka ah waxaanu leenahay madaxweyne in la curdin dhaliyo maaha in aaraadooda iyo hal abuurkooda la buquujiyo maaha xaq bay u leeyihiin oo dastuurka u damaanad qaaday inay dareenkooda cabiraan hadduu si qadaf ku kaco ama qalad galo wuxuu leeyahay dariiqo loo maro qof dambi galay difaaci mayno laakiin waxaan leenahay Saciid Maxamuud Gahayr iyo Cabdiraxmaan Abees iyo dadka la midka ah iyo qof kasto aan dariiqo sharci loo marin waxaan leenahay laga daayo nidaamkii dimuqraadiyadda maaha nidaamkii xuquuqul insaanka aynu dastuurkeena ku qoray maaha ee xuquuqda bini'aadamka aynu la ilaaliyo waa arrin dhaawacaysa waxaan leenahay kuwaan xorriyadooda ha loo soo celiyo muwaadiniintana hanaanka dimuqraadiyadda aynu ilaalino waxaan ku soo gabagabaynayaa guurtiga oo gole golayaashii labadii gole golihii sareeyay
Somaliland in badan ku soo caanamaashay hanaanka doorashada ee inoo socda iyo dimuqraadiyadda ee aynu muddada soo wadnay kordhiskiina suu wax yeelinay wax macquul ah oo aan dhaafsiisnayn sanadka aan dhaafsiisnayn hadii intayadii ku wada jirtay ee wax wada lahayd aanu isla fahmi weynay waxaan dhaafsiisnayn sanadka 2019 ama 2019 yaan la dhaafin hadda awoodiina idinku ma haysano waxaanu saleenahay yey dhaawac u geysani walaw ay carqalada badani jiraan taana guurtiga aanu soo jeedinayna annagu aan xilkooda ku haysan waxaan dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland u soo jeedinaya waxa muuqata daldalool badan oo ay keentay ama doorashooyinkii ama muranka siyaasadda ee dhex yaala siyaasiyiinta ha ku niyad jabina gaar ahaan dhalinyarada wax leeyahay ha ku niyad jabina insha Allah taala mustaqbal fiican baynu gaari doonaa waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland isku duubnideena aan ilaalino wada jirkeena aan ilaalino wixii qarannimada aan dacal uga soo wada jeedno waxa la isku hayo iyo afkaarta siyaasaduna way dhacdaayo dalalka dimuqraadiga way ka dhacdaay yaan loo qaadanin in la iskaga dhabaynayo ay gacanta tagaysa yaan loo qaadanin